داوديال هبه wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkii masraxa iyo masraxiyada aad kala socontaan SNTV ama telefishinka qaranka Soomaaliyeed barnaamijkan masraxa iyo masraxiyada waxaan ku soo qaadanay hablo hadmaad gursan doonta aynu isla aragnay oo aad uga hasheen iyo cilmi iyo caado iyo sheekay qab iyo koow guud ahaan riwaayadahan aan halkan ku soo bandhigay ujeedada laga lahaa يعني waxay ahayd ummadda horta in dhaqankeedii iyo taariikhdeedii iyo noloshii bulshada iyo dhan walba leh in yani ummadda ay kala socoto ay yani kaga faa'iideystaan ay yani wax ka bartaan adduunka waa in la soconaa yani 300 sano ka hor yani riwaayadihii la dhigay hadda la daawdaa aflaamtii mataqaanaa kuntameeydi afartameeydi taariikhiga ah ee dagaaladii waaweynaa oo Jarmalka oo ku qaaday adduunka waxa hadda adduunka marka waa la baraa dadka weynaha baa la baraa oo loo soo bandhigaa oo looga faa'iideystaa marka haddaynu anaga Soomaaliyeed ma arto inaan ka faa'iideysana wax allaale wixii la heli karo riwaayada ah يعني أنا نبرة يدقنكني نلوشني إيواجي ما تقنا سيدا أنا هين إسلامر كان وحسوق جد بيني يعني أبو أنا ذا الرواية ده كل دون قرية هذا يعني فرحة بدن وجدي كليه يعني وحكوا يعني أمدي لو جد بيو يعني وحي تاريخ نقدان ومرك يعني بقول سنة مرك هذا يكسور ثم يعني إن يعني ورات راع يعني أن ترترمين دقنك يو وحوالبا نولشي يو وجي ولي بلا لو صوب بندق الرواية ده مركا وقتين رواية ده يعني وحي ليهن ماد يمرق بي ليهن مركا وحي ليهن ما أرتي جعيل بي كجرو دقال با كجرو قيانا كجرو وحيالا رواية مركا داوتان حير سروية وحيابها أبانا أمد الصومالية وحويان فانكا inaynu nooleeyno aynu kor u qaadno fanka xagga riwaayadaha suugaanta heesaha ciyaaraha hidaha dhaqanka wax walba yani badaha fanka aad bay u farabadiyay badaha fanka waa halka adduunka ummadaha ay ka nool yihiin weeyaan ummadaha hadaysan fan lahayn ay meel isku fakir jibiyaan meel ku soo qoslaan meel ku soo raaxaysan meel wax ciyaar sport hadaysan jirin ummadda ma noolaan karto qof inuu soo kaco shaqeeyo saxda haddana way ku adkaanaysaa marka masraxa waaqay yani taariikh dheer uu leeyahay halkan aan ka soo sheegay aad la socotaan marka riwaayadaha ama masraxiyadaha riwaayadaha waa liira marka waa qayb kamid ah yani dadweynaha يعني أصوب بندقية نولشودي بولشودي نقدي قصة ماينيو قار سياسة أهب قصة سماج الرواية ده وقتين تاريخ ده دوك مركتين دولة ده كسوهر جود وقار بارتي واحد يعني عافمات كهذا قار جعل بدنا لكن واحد مدة الرواية ده دوك قدر جعيل إيه وبديه هني ما أرتي قويسس إيه رأي واحد قبانة إيه إسكهر إيماني مرك هذا مركات هبلية ما تقول صدق أنت صودا وتين علمي عادات صارتين حق قرافاتك وحي كدعي حتى قبيلة soo aragteen قبيلة كو يعني وحا قري شيء قراها الرواية يعني محمد عبد الله السنقبوها يعني وحا عبرية مركي قراها يعني بولشدة الصوماليات أيوة عبرية يعني إيغي وفيري صوماليا سيدو حق يعني وضن ولا شاه جوركا يعني قفك قويسسك سيد يعني قابك دون رج ولا دقم جري دون مركا محلي مركي سومالي لقي يميدول يعني هل كان دبدا يمادين وحو قراقه يعني سيد سوبر بردقيو يعني isbedelka meeshas ka dhacayo dumarkii ma taqaan gabadhan arguudarashanayso hada qabiilku marka daawateen oo kale oo ingiriiska sida ugu hadlayso ninkan asigana uu jaahil oo yahay sangubna ruumana ingiriiska daldalayso waxa ka dhacay waad aragteen marka yani iska hor imaad iyo isfaham daro ayuu marka qoraaga riwaayada oo cabiriya oo sheegaya marka inaad daawataan oo aad hor fadhiisataan bal ku fikira ruuxan sidee xal loogu helaa masaan baa nololaa dhibaatada ragga miyaa wada ma dumarka ma wado weligeed masaan baan ahaan jirnay sidayna uga hortagnaa waa in laga hadlaa waa in